waxaa magaalada Hobyo lagu qabtay shirweynihii labaad ee wadatashiga bulshada kaasi oo ay soo qabaqaabiyeen bulshada deegaanka waxaana ay ku dooranayeen baahidooda koobaad. shirweynahani oo ay soo qabaqaabiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowlad goboleedka Galmudug oo horkacaya wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug Cumar Maxamed Diiri Cumar Gooreeye. shirweynahani oo sidoo kale ay qabaqaabadiisa qayb ka ahayd hay'adda CBD ee wada mashruuca wada jirka degmada Hobyo ayaa baahida koobaad waxay bulshada deegaanka u doorteen xarunta maamulka degmada taasi oo 174 cod heshay waxayna kaalinta labaad u soo galay nalalka soolarka ee cadceedda ku shaqeeya. baahidan horumarineed ayaa lagala gol lahaa in lagu xoojiyo dadaalada dib u heshiisiineed ee laga bilaabay degmada Hobyo iyo sidii loo heli lahaa dhismaha golaha deegaanka. mashruucan wada jirka ah ayaa ah mid hindisihiisa ay leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana maal gelinaya sanduuqa Somali Stability Fund ee loo soo gaabsho ASF. Cabdullaahi Axmed Cali gudoomiyaha degmada Hobyo ayaa ugu horeyntii ka hadlay kulankaasi isagoona u mahad celiyay dadkii soo agaasimay kulankan wuxuuna dadka deegaanka kula dardaarmay in ay u codeeyaan halka masiirkooda uu ku jiro. doorashadaas waxay noqotay mid albaab ku furtay barnaamijka dimuqraadiyadda ee dalka laga wado faa'iido weyn laga soo gaaray waa sababta ka tiyaadada maanta mas'uuliyadda haddana wax doorka leeyahay waxaan markaa waxay bi sacbada loo ridaa waxaad haysid ha kullu manni waxaad haysid ha kullu manni waxaad haysid wadardana waxaan ka wada waxaan maanta u baahanahay example day cadawada ka qaybqaatay oo ka laayay hay-aduhu waa badiyay hay-addan maanta waxay kuu qaban karto hay-ad kale kuu qabanaysa tu kale tiyada kuu qaban hadda meelaha waxbaa ka wada masuul meelahoodana ballamaan ka wada leenahay kuwa aynaan ballamada ka lahayn ee aysan loo qabanaynin meelaha kale inaan ku qabsano maanta ayaa dal loogu jiraa. Cumar Maxamed Diiri Cumar Gooreeye wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug oo dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa dadka deegaanka kula dardaarmay in ay ka fiirsadaan halka ay u codeynayaan wuxuuna sidoo kale sheegay in ay tahay fursad soo martay dadweynaha ku nool degmada Hobyo. waa inaad amniga ka shaqeysaan waa inaad qof kasta oo magaalada tan maxaayeen amni darro iyo qalqal wax abuuri kara ka shaqeynayo qofka ugu dhawaan gacanta qabta waa inaad dantanada gaarka aynu ka hormarinaa danta guud haddaan qof walba horumarin ee qof kasta horumariyo dantiisa gaarka waxba noo qabsoon maayaan. arrintaasaan waxaan maanta inaan isku baraarujinno dhammaanta aynu maskaxda ku wada qabanno isgaarsiino ka wada shaqayno. dadka Soomaaliya dhammaantood waa wada khuburo waa wada macallimeen waxay macallimeen iyo khuburo ku codaynta baahiyada deegaanka ayaa waxa u codeynaya ilaa 324 qof waxaana 174 cod helay balaarinta xarunta degmada halka booska labaad loogu codeeyay nalalka soolarka iyadoona ay u codeeyeen 99 qof halka sidoo kale 36 qof ay u codeeyeen suuqa balse bacaad celinta ayaa waxa u codeeyay 8 qof hase yeeshee 7 qof ayaa u codeeyay isbitaalka oo galay booska shanaad sida ay sheegeen guddiga doorashada. kaalinta koobaad waxaa gashay degmada waxayna heshay 174 sidaas ayay marka waxay ku noqdeen dadka 162 qofood ayaa soo xaadirtay oo codaysay saas aqaliyadaad ku hesheen. مبارك محمود شيخ عادن TV عالمي Universal عدادو.